وأنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب. waxaan kuugu yeernay inaad imaato waddankeenan masiixiga si aad uga doodo mowduuc ku saabsan ma yahay kitaabka Bible-ka ahi hadalkii Alle ma leedahay geesinimo taasoo keenaysa inaad u yeerto ninkani qiska ah ee Sawaajirt si uu kula doodo mar kale isla mowduucaasi magaalada Makka haddiise arrintaas dhicin maxaa sabab su'aasha la soo riday haddii ay tahay adigu diyaar ma u tahay inaad Sawaajirta mar kale la doodo meelo kala duwan sida Mareykanka anigu waxaan diyaar u ahay inaan ku dhiibo xitaa inaan la kulmo hal mar oo kaliya $10,000 meelo kala duwan sida Madison Square iyo Jardine magaalada New York $10,000 hal mar inaan la kulmo 4 kulan oo Mareykanka ka dhacaya $40,000 laakiin saa'ilku wuxuu leeyahay haddii aad diyaar u tahay inaan kugu yeerno inaad kula doodo magaalada Makka ugu horeyn anigu Makka ma xugminayo marka labaad haddii aad rabto inaad Makka aado adiga waxaad u baahan tahay dalku gal ama fiise marka aad rabto inaad soo aado Mareykanka waxay igu qasbaysaa xukuumaddiinu inaan helo dalku gal ama fiise dhibaato ayaan liigaliyay arrinkaas maxaa yeelay waxaan rabaa inaan Mareykanka tago waa isku mid marka aan rabo inaan soo aado Mareykanka aniga waxaan fulinayaa dhammaan shuruudihiina si kastoo shuruud igu keentaan haddii aan fuliyo shuruudihiina waxaan heli doonaa dalku gal haddii aysan arrintaa jirin ma la helayo dalku galka ama fiisaha Canada ama fiisaha Mareykanka xitaa Koonfur Afrika marka waxaa laga maarmaana inaad fulido shuruudda sidaa darteed waxaa jira shardi haddii aad rabto inaad aado Makka shardigaasna waxa weeyaan inaad ku dhawaaqdo labadaada faruuriyood la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kaana macnihiisu waxa weeye waxaan rumaynayaa hal ilaah inuu jiro ma ahan ilaahu ruuxul qudus mana ahan masiix ilaah waxaan rumaynayaa inuu jiro hal ilaah waana Allah nabi maxamedna inuu yahay rasuusha Alle kii ugu dambeeyay marka shardiga fulido waxaan kugu soo dhaweynaynaa Makka. You are welcome to come to Mecca.